qisooyinka waxaa ka mid ah xayawaanaadka naxariistii nabigu u naxariisan jiray dabacadiisii macaaneed ka mid ah uu kula dhaqmi jiray waxaa ka mid ah xadiidka cabdullaahi ibnu jacfar uu warinayo wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alayhi wasallam ayaa maalmaha ka mid ah neefkii uu saarnaa ayuu gadaashiisa isaaray buu ardafani waa ifangeliya nabigu sal alla alayhi wasallam gadaashiisuu saaray markaasuu nabigu sal alla alayhi wasallam dhegta wuxuu ii saaray buu yidhi war iyo khabar aan cidna u sheegayn nabigu wuxuu yidhi sal alla alayhi wasallam warkaasi wuu qarsaday wuxuu ugu jeclaa buu yidhi markuu xaajadiisa gudanayo waxuu isku asturo geedaha timirta ah iyo beerahaasi inuu dhex galo ama hadaf shay uun inuu muxuu ahaa isku qariyo jeclaan jiray buu maalmaha ka mid a ayuu marka wuxuu galay buu yidhi beer geedo waaweyn oo beerihii ansaareed ka mid a ansaar beeraheedii mid ka mid uu nabigu galay sal alla alayhi wasallam markuu beertii dhex galay ayuu wuxuu ugu tegay neef geela neef geelu ugu tegay rati markuu arkay geeli ratigii markuu nabiga arkay sal alla alayhi wasallam ayuu markaa fajarjar waa codeeyey waa ololay indhihiisuna waa ilmeeyeen waa neefkii geel ahaa waa ilmeeyey waana sawdeeyey markaasaa wuxuu yidhi rasuulku sal alla alayhi wasallam meeshan tawaadda ah iyo halkanuu ka masaxay gacantuu ka mariyey nebigu sal alla alayhi wasallam markaasuu neefkii geelaha wuu xasilay yacni waxa weeye ololkii iyo qayladii iyo ilmadii iyo wixii buu daayey markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alayhi wasallam man saaxibu اljabal war neefkan yaa iska le neefkan yaa iska leh yaa iska lahaa neefkan buu nebigu sal alla alayhi wasallam neefkan geela yaa lahaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa wiil dhallinyaro oo reer ansaareed ah ayaa yimid markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah anigaa iska leh neefkan anigaa lahaa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alayhi wasallam alaa tattaqi illaaha fii hadihi albahiima allatii mallakaka allah miyaadan ilaahay uga baqaynin bahaa'imtan aan hadlaynin ee ilaahay kuu gacan geliyey ku milki siiyey maad ilaahay uga baqdid buu ku yidhi innahu shakaa ilaya annaka tujiicuhu wa tud'ibuhu wuxuu ii sheegtay buuhi iiga dacwooday ratigani ama neefkan geeli wuxuu iiga dacwooday in aad yacni waxa weeye gaajaysiiso oodan cunto ku fiilan siinin midda labaadna inaad daalisood rafaadiso wuxuusan qaadi karin iyo aad ku haysana wuu ii sheegay buu nebigu sal alla alayhi wasallam leanna nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mucjizaadkaysay ka mid ahayd marmarka qaarkood geedaha la hadli jiray iyo jamaadaadka marmarka qaarkood xayawaanaadkaasaa la hadli jiray hadalladoodana wuu fahmi jiray nebigu sal alla alayhi wasallam marka ratiga wuu fahmi nebigu inuu dacwo yahay markaasuu kii lahaa intuu yeedhay buu yidhi sidaa ka daa neefka uga naxariisto sidaasi ilaahay baa gacanta kuu geliyey sidaasuu rasuulku yidhi sal alla alayhi wasallam ibnu abi shayba iyo axmed iyo abu daawuud baa wariyey muslim sidoo kale laakiin qisada jamalku kuma jirto riwaayada muslim mar kale nebigu sal alla alayhi wasallam waxaa ka mid a naxariistiisii uu yani xayawaanaadka kale ugu naxariisan jiray shimbiraha sidoo kale yani xayawaanaadka in la dhibo waa uga naxariisan jiray nebigu sal alla alayhi wasallam xadiidka saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahay ibnu cumar baa wuxuu soo maray niman dhallinyara oo reer quraysheer ah oo intay shimbir meel ku xidheen ama shimbir meel dhigeen tooganayo ku toog dhisanayo toogta ku baranaya markaasaa waxa weye ninkii shimbirta iska lahaa waxay yidhaahdeen yani ganitaan kastoon la gafno waxbaad ku leedahay shimbir baa marka meeshaa la dhigay waa la tooganaya marka waa lagu toog dhiganaya waa lagu toog baranaya ibnu cumar baa marka soo maray markaasaa markay ibnu cumar arkeen cabdillahi ibnu cumar saxaabadii nebiga sal alla lay slam ka mid ahaa markay arkeen bay kala carareen dhallinyaradii markaasaa ibnu cumar wuxuu yidhi man facala haada lacana allah man facala haada war yaa sidan yeelay lacnadii ha ku dhacde yaa sidan yeelay lacnadii ha ku dhacde wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal lla lay slam lacana man ittakhada shay-an fiihi ruuxu garadan nebigu sal lla lay slam waa lacnaday ruux kasta oo wax nafi ku jirto ka dhigta hadaf uu toogto wax lagu toog dhisto lagu toog barto noole ruuxii ka dhigtaay lacnada ilaahay ku dhacdo nebigu waa lacnaday buu sal alla alayhi wasallam marka yani waxa weye waa noole waa shimbir naf baa ku jirta inaad ku ciyaartood ciyaar ka dhigatood aad toogtoogatood rafaadiso maya ilaahay xikmad buu u abuuray haddii la intifaacsanayo meesheeda weye haddii la intifaacsanayaa xataa loogu talagalay inaan naxariista laga tegin xadiidkaasi muslim baa soo saaray isla xadiid kale
oo iyadana shimbiraha ku saabsanaya nebigu sal alla lay wasallam si ugu naxariisan jiray xadiidka cabdiraxmaan ibni cabdillaah aabihii buu ka warinayaa wuxuu yidhi yani waxaan ahayn rasuulkaan la joognay sal alla lay wasallam safar iyo socotaan ahayn rasuulkaan la soconay ayib nebigu marka sal alla lay wasallam saxaabadiisii isagoo la socday wuxuu aaday xaajadiisuu aaday dan buu u baxay si gooniyo meel ugu baxay nebigu sal alla lay wasallam markaasaa waxaan aragnay buu yidhi saxaabadii haddaan nahay shimbir laba ilmoodoo yaryara haysata labadii ilmoodoo yaryarkaad baan ka qaadanay dhal yar yaa ay meel ku haysataa meel ay gashatay ama buul ay gashatay baan ka qaadanay markaan kala baxnay ayaa waxaa shimbirtii waxay bilowday buu yidhi inay baalasha ay kaga balbalqsiiso oo muxuu ahay baalasha ruuxdo oo ay wareegto oo ay muxuu ahay degi weydo markaasaa nebigu sal alla lay wasallam nebigaa yimid nebigu marka wuu gartay shimbirtan duulduulaysay rafaahsanaya garba muxuu ahaayey kolba dhinac u duulaysaa waa gartay in wax lagu sameeyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla lay wasallam man fajaca haadihi biwaladiha war yaa argagixiyey yaa ilmaheeda ku argagixiyo sidan u galay shimbirtan rudduu waladaha ilayha ilmaha u soo celiya buu nebigu sal alla lay wasallam ilmaheeda u soo celiya maxaa u argagixinaysaan hooyo ilma haysata waaye caruurteeda maxaad uga nixinaysaan maxaad u dhibaataynaysaan maxaa u rafaadinaysaan soo celiya ilmaheeda buu nebigu sal alla lay wasallam mar kale wuxuu yidhi waxaan aragnay buu yidhi wuxuu arkay buu nebigu sal alla lay wasallam oo uu ishiisu qabatay qariyo muxuu ahaayey baashan quraanjada meel ay degan tahay degmad ay quraanjo degan tahay oo la gubay oo saxaabada qaar ka mid a ay gubeen oo dab qabadsiiyeen waa quraanjo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla lay wasallam man xaraqa haadihi war yaa tan gubay yaa quraanjadan yaa guboo dabka qabadsiiyey markaasaa waxaan idhi annaga way rasuulka ilaahayo nebigu wuxuu yidhi sal alla lay wasallam marka innahu laa yenbagii an yucadiba binnaari ilaa rabu nnaar ma habboona dabka inuu wax ku ciqaabo oo ku gubo ilaa rabbigii dabkan iska lahaa mooye dab wax laguma ciqaabo saas daraaddeed shareecada cuquubaadkeedu ka mid ma aha in wax la gubo noolaha in la gubo ka mid ma aha nebigu waa diiday sal alla lay wasallam marka quraanjadii buu nebigu u naxariisanayaa shimbirtii buu u naxariisanayaa xayawaanaadkii buu u naxariisanayaa kii xoolihii la dhaqanayay buu nebigu u naxariisanayaa sal alla lay wasallam xadiidkaasina ibn abi shaybi iyo axmed yaa soo saaray kaa hore waxaa soo saaray imaamu muslim caleyh raxmatullah ee ku saabsan shimbirta lagu toog dhisanayo tan dambana waxaa soo saaray ibn abi shaybi iyo axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood waana xadiis sugan waaye mar kale nebigeennu sala allahu aleyh waali wasallam waa ka ummaddiisa baray inaan muxuu ahay noolaha muxuu ahay aan la cadaabin oo aan la rafaadin oo dhibaataynin xadiidkii cabdillahi bni cumar waa kii rasuulku sal alla alay wasallam dakhalat imra'atun annaara fii hiratin rabatatha haweeney baa bisad ama mukulaal sababteed bay naar ku gashay way xidhay cuntadiina mayna siinin waxay ku noolaan lahayn mayna siinin inay bannaankeeda aaddo ooy soo qarhaabato oo ay waxay soo raadsan karto raadsatana way ka xidhay meeshiina cunto mayna ku siinin sidaasay ku dhimatay naar bay u gashay buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bukhaari iyo muslim baa soo saaray muxuu nebigu ummaddiisa barayaa xayawaanaadka iyo noolahaas ilaahay noolaystay in loo naxariisto oo muxuu ahay aan la cadaabin oo aan gaaja loo dilin oon loo dilin bal iskaba dhaafay nebigeennu sala allahu aleyh waali wasalam eyga oo khasal xayawaanaad ka mid a xayawaanaadka kuwa ugu liita ka mid a ayaa nebigu sal alay wasalam wuxuu tilmaamay ciddii u naxariisatay inuu ilaahay janno ilaahay ku galay xadiidka abu hurayra nebigu wuxuu leeyay sal alay wasalam nin baa isagoo socda baynamaa rajulu yamshi biariiq nin baa isagoo jid socda oo socotaa ayaa waxa weeye oon daran baa qabtay ishtadda calayhi alcatash oonkii baa ku daraaday aad buu u oomay markaasuu wuxuu yimid ceel buu ku yimid ceelkiibuu galay wuu ka soo cabay markuu ceelkii ka cabo isagii uu oonkii ka baxay ayuu markaa kadib ka soo baxay ceelkii markuu bannaanka u soo baxay wuxuu arkay ey dacasha muxuu ahay biyahan bannaanka ku daadaadsan ee ceelka bannaankiisa ku daadsaadsan biyaha yani waxa weye qoyaankaas carabka laalaadinayo leefleefaya yani waxa weeyaan markaasuu nebigu ninkii wuxuu yidhi walle eygan oonkii iqabtay baa haya rafaadkii ihayey iyo dhibkii ihayey mid la mida haya buu yidhi markaasuu ceelkii ku noqday kabtiisa khufkeeda intuu siibay ayuu ceelkii galay khufkiibuu biyo uga soo buuxiyey intuu afka ku qabtay khufkiya buu ku jiro buu ceelkii soo fantay oo kor u soo fuulay markaasuu eygii waraabiyey fashakara allaahu lahu fagafara lahu nabi sal alay wasalam
إلهي با uga mahad celiyay oo uga shukriyay waxa uu sameeyay waana u dambi dhaafay Allah tabaaraka wa tacaala sidaas way markaas saxaabadu waxay yiraahdeen qisada markuu nabigu saxaabada u sheegay ayaa waxay rasuulka Ilaahayow wa inna lana fil bahaa'imi ajran oo waxyaalahan aan hadlin iyo xayawaanaadkan aan hadalka lahayn wanaagii ihsaanka aan u sameeyna ma ajir baan ka helaynaa markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam nacam fi kulli dhi kabidin في كل ذي كبد رطبة أجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ميت كستو بير قيان له نفي كوتشر تواهي وحي إحسان الله سمي أجر بالغيه ليا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسي رواية كلا حديث كوي أبو هريرة ورينيو وعدة إيجا ورابسي كدغايا إني هيد هويني زانيد ودمر كان شركودا يعني خرمي حمان تقلي أي كميد هيد أي بي مركا ورابسي أومن إلهي با تبارك وتعالى وقدم الدافي مركا نبي صلى الله عليه وآله وسلم هاي اسكداف صحابتي اسكدا آدمها كلا اسكدا حتى حيوانات كو حريص بدنا نبي صلوات ربي وسلامه عليه وسلم